kulanti waxaan wanaagsan idilkiin ku soo dhawaada barnaamijka Fiyaadi Fagaaraha oo martin ugu yahay Cabdullaahi Macalin Xasan waxa uu xubin ka yahay dalada Talasamo oo ka shaqeysa waxbarashada. Cabdullaahi ku soo dhawow Fiyaadi Fagaaraha sharaf ayay noo tahay inaad nagala qayb qaadato. bismillaahir rahmaanir rahiim wareyn waxaan madalinayaa Allah subhanahu wa ta'ala marka labaadna waxaan soo dhaweynayaa oo islaamaya wadaanada barnaamijka Fiyaadi Fagaaraha aad mahadsantaadna waxaan rabaa Cabdullaahi inaan wax ka taataabano dalada Talasamo muddooyinkii dambe howlo badan ay haysay oo ka aasaasan gurceelna ka shaqeysay iyo deegaanada miyiga Talasamo waa dalad noocay horta marka hore waa maasantahay Fiyaad dalada waxaa la yiraahdaa dalada horumarinta waxbarashada ee Talasamo dowladda soo kooxda waxbarashada Kenya arrimaha ay ka shaqeyso runtii waxay kamid yihiin saddex qodob ayaa ugu weyn waxbarashada caafimaadka iyo wacyigelinta waa dalad khayriya oo maaragtay aan faa'iido doonahayn marka laga eego dhanka interestiga oo dadku ay ka leeyihiin wada kaliya faa'iido laga rabo inay tahay in maaragtay jiilka soo baxaya ay noqdaan dad educated ah oo waxbartay si maaragtay jahliga iyo dhibaatada iyo xaqdiga iyo istilka iyo maaragtay ay u yaraadaan ay maaragtay daladan u istaagtay inay soo saarto jiil maaragtay waxbartay oo noqdo jiilkan ku gaadhilaan waayahay gorma la asaasay daladan dalada Talasamo waxaa la asaasay bartamihii sanadkii 2018 ilaa haddana qofkii loo asaasay ay haysaa waayahay ragii asaasay qayb baad ka ahayd bal haddaad nala wadaagi lahayd waxaan ku dhaliyay inaad asaastaan runtii wax kasta oo maaragtay la samaynayo wuxuu u baahan iskarayo oo sabab in la asaaso ama la sameeyo waxaan ugu qasbay ama ugu kalifay inaan daladan asaasno ama aan sameyno gaab ka jiray dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka iyo wacyigelinta haba u sidaraato meelaha ka fog magaalooyinka oo u daraato miyiga maaragtay miyiga waxbarashaduna aysan gaarin caafimaadkuna aysan gaarin wacyigelintuna aysan gaarin waay dadkii mas'uuliyaddaas lahaay ama mas'uuliyadda maaragtay dowladnimadeena maaragtay aysan weli xataa magaalooyinka si fiican soo gaarin waay gaabkaas oo ka jira dhinaca miyiga ayaa maaragtay nagu dhaliyay inaan maaragtay buuxino gaabkaas miyiga keliya mana ahan magaalada xataa waa ka sameynaa miyigana waa ka sameynaa ololahaas maaragtay ololaha ugu badan maadaama targetka dad badan uu magaalooyinka u saaran yahay meelaha dee weli aan focuska la saarin oo baahida ay ka jirto dhinaca saddexdaas barnaamijna ay miyiga tahay sidaas ayaan waxaan isku maaragtay ku sheegnay inaan dhinacaas annagana markaan bal focuska saarno marka sidaas baan ku bilaabnay alxamdulilah meel fiican ayaan noo maraysaa Talasamo waa la asaasay miyigii wax ka qabatay deegaano badan ay iskuulla ka furtay yaa ka caawiya dhaqaalaha ku baxaya maasantaas saaxiibkay dalada Talasamo runtii 5 sano ku dhawaad 5 sano asaasan tahay waxay gacanta ku haysaa tiro iskuul ah oo gaaraya ilaa 3 iskuul 12 kamid ah ay si maaragtay toos ilaa hadda u shaqeeyaan halka kan kalena maaragtay arrimo amni waxa u jira laakiin rajaynayno maalmaha soo socda insha Allah asoo inuu furmi doono waxaa dhigata arday maaragtay runtii ku dhow 2,000 oo arday waxaa ku baxa qarashada aad u fara badan ku baxa dhismaha haato ama macallin shirkado haato ama buugaagta haato ama kormeera haato waxyaabahaas waxaa runtii waxaa laga soo aruuriyaa waxay Talasamo markasta sameysaa isku tashi waxay sameysaa donation oo ayada dhexdeeda ah tijaarati ayada dhexdeeda ah oo jeebkeeda ay maaragtay marka hore ka sameysaa sadaq aruurin waay oo bilaa sidaas qayb kamid ah ayaan ku xalinaa barnaamijyada oo maaragtay howlaha socda ee qarashaadka socda qayb kamid ayaan ku xalinaa waxaan runtii aan halkan ugu mahadcelinaynaa oo maaragtay kaalin aad u weyn ka qaata arrimaha dalada ay wado oo la'aanteedna dee aanan wadi karinba waxaa waaye dee wasaaradda waxbarashada ee galmudug madaxda ka yahay wasiir Doore iyo tiimkiisa gacan runtii xoog leh
مقله ميزان لأنتنا أو قبل وجود كرنا يرونتي نجت تغييران وأوحد علينا وزارة وزيرك يرمان أصحاب وزارة وأوحد علينا من مارة أجاسمه دقمه دي أول دقمه إلا وزيرك إلا أجاسم يا شكل وأوحد علينا رونتي وحين سي مارة دي قلي لأنتنا meeshaan macna soo gaarnay marka qayb weyn oo kamidana ee wasaaradda iyo tiimna dadka maaragtay jaaratiga oo maaragtay sadaqada la baxayo oo dadka deegaanka ugu badan ayaa naga caawiya waxaan dhisnay iskuulaadkaas qayb kamid ah wasaaradda ayaa dhistay codsiyaal aan u geynay dadka deegaanka codsiyaal ka imaaday maadaama aan aqoonay dad u dhaxeeya wasaaradda iyo dadka deegaanka qaran ahay codsiyaal badan oo geynay wasaaraddu way naga baxshay meelo badan ilaa 4 xarumood ay wasaaraddu iskuulo maaragtay standard ah qolalkooda maaragtay ay waasic yihiin oo aad u qurxan ay wasaaraddu ka dhistay oo ilaa hadda shaqeeya markii horena lagu bilaabay qaab maaragtay geedo hoostooda cabshaan lagu bilaabay haddana maaragtay wasaaraddu ay u bedeshay cabshaantii guriga dhismaha oo aad u qurxan u bedeshay marka wasaaradda waa macalinaynaa sidoo kale jawaabta kala samo qayb kamid ah ayaa laga dhisay kamid ah iskuulka cilmi dawla wasaaradda ku haysanade waxaa kamid ah iskuulka ku yaala maaragtay ceel baraf meel yiraahdo meel dhagax yaalo oo kale waxaa kamid ah caag oo kale dhammaantood wasaaradda ayaa dhistay kuwana dee waxaa isla dhisay dadka deegaanka iyo kala samo iskaashanaya ayaa dhisan ayagana dee si fiican oo loogu bartaa oo dadka deegaanka waxaan u sameynaa baraarujin waa la fadhiisanaa si maaragtay dadka deegaanka mar kasta haddii wixii laga dhigo wax ayaga la siinayo oo maaragtay meel kale ka imaanaya waxaa meesha ka bixaysa lahaanshihii marka si ay dadku lahaansho u dareemaan ku leeyihiin waxaan sameynaa iyadoo laga yaabo mararka qaar in maaragtay haddii aan waqti badan ku bixinno in maaragtay hal iskuul jaabkan aan ka dhisi lahayn waxaan sameynaa iskuul kasta qayb bulshada deegaanka kamid ah shaqaalaheeda in lagu daro macnaha bulshada ay u daranto lahaansho ay u dareento kasta oo ka dhaawacantay ay maaragtay u tirtirato qof kasta oo ku ciyaaraysa ay ugu ceshato ninkii deefidiisii soo gaday magaca u lahayd oo jeclaa iyo waqtiga ku soo baxshay ee iskuulka ku soo daray wuxuu dareemayaa iskuulka inuu qayb ka leeyahay laxaw jeclaa macnaha qabanaysa marka wuxuu sameyn doonaa inuu ilaashado si marka loo helo lahaanshahaas bulshadu inay leedahay qayb kamid ah bulshada mar kasta oo wax la sameynayo qayb ayaan bulshada ka siinaa wayna runtii ka qayb qaataan sidaas ayaan ugu kuwanaa waaya cabdullaahi miyigan inta badan xoogga saartaan maxaa iska bedelay wacyiga bulshada dhinaca waxbarashada deegaanada miyiga wallaahi waxaan xustaa saaxiibkii markii hawshan aan bilaabaynay deegaanada ugu horreeyay dhibka ugu badnaay ayaan kala kulannay deegaanka waxaa laga yaabaa hal deegaan marka hawshan bilaabaynay deegaan walba inaan ku laaban jirno ugu yaraan 7 jeer 8 jeer ilaa 10 jeer inaan ku laabanay mararka ugu horreysana inaan kala soo kulmaynay wajiga waxnimo taasoo macnaheedu ay tahay dadka deegaanka uma aysan diyaarsanayn fahanka ma haystaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo maaragtay lacalaana wax lagu barayo waxbarasho waxay tahay dee uma diyaarsanayn markay ku jeedaan dee waxaa ku soo dhacay ugu horreeya waxay tahay NGO buskud iyo garaariya wada iyo kaar wada ayaa ku soo dhacay markii imaatay intii ka waayaan qaarkood waxay ku leeyihiin inta daawada oo la kaar wadin oo buskud iyo qodan oo la garaariya wadin oo dee ma banay meesha ordaasha fiskad anaga waxaan u baahanahay daadahayna waxbarashada wax isma awoodin u baahanahay ordaasha fiskad kabacdi waxa laga yaabaa inaan la fariisano u sheegno qaabka ay wax yihiin u sheegno inaan waxbarasho wadno u sheegno inaan caafimaad inaan kala shaqeyno rabno u sheegno inaan dantooda inaan ka shaqeyno inaan ugu imaanayno ka dhaadhicino kaarka iyo garaariyada iyo maaragtay buskudku inaysan joogto noqonaynin laakiin cunuga wax barta uga muhiimsan tahay oo asigu joogto u noqonayo bal noo soo laabta bal asarkeena mar kale hadana waxa laga yaabaa markii labaad inaan ku laabano haddana la yiraahdo waa kala maqanahay mar saddexaad inaan ku laabano mar afraad inaan isfahamno laga yaabaa aan wada fiirsano waajibaadka kala qaybsano ay maxaa idinka intaas oo hawla taala wax loo baahan yahay dhulka uu bar lahaa waxa loo baahan yahay ardadii wax bar lahayd waxa loo baahan yahay macalinka wax bar lahaa waxa loo baahan yahay agab wax uu bar lahaa ka deegaan ahaan maxaa intaas qayb qaadanaysa ugu horeysatay cabashi bilaabayaan iyo wax isma awoodno iyo adiga wardar ka bacdi markii ma wada hadalno qayb un bay qaadan doonaan qaybaha ay qaataan inta badan waxa ugu muhiimsan inay dhahaan ardaydeena waa keensanayna dhulkiina waa la bixinaa sidee baa ku xaliseen marka caqabadahaas Cabdullaahi runtii waxaa barnaamijkii waxaa imaatay in markii deegaanada ugu horreeyay laga gudbay oo dhibkii deegaanada ugu horreeyay oo ku ekaaday hadda waxay maraysaa
heer maaragtay telefoon barnaamij soo dhacayo waay oo deegaan ay soo masayrayaan oo deegaan kasta oo soo wacayo waxyaabo la yiraahdo baro ayay sameysteen oo runtii in la joojiyo ayaad fiicnaan lahayd oo isu dhow oo qolo ugu bigtay aysan jirin xataa waxbarashada caqabada ku noqotay isu guditaanka caqabada ku noqotay waxaasna waxaa koosgareynaya waxa waaye waxyaabahan kaararka iyo maaragtay waxaan la qaybinaya iskuuliya injooyahaas oo koosgareynaya waay marka waxaa maraysaa hadda qolo kasta oo meel joogta ama community kasta meel ku aruursan in oo maaragtay nala soo xiriiro oo leeyahay waxaan rabnaa inaad noo imaatiin waxaan rabnaa inaad maaragtay waxbarasho u baahannahay ardaan haysanaa wax ka qayb qaadanaynaa iskuul in loo dhiso macallin loo keeno dadka wax nala baraa rabnaa shalay marka waxay taagneed war haddaadna biskuud iyo maaragtay kaar weynio naga laabto haddaan naga baxa laakiin maanta waxay taagan tahay in maaragtay telefoon isku soo daba dhacayaan dadkii maaragtay deegaanada degan ay isu masayrayaan waxbarashadii dadkii ay fahmeen xiise ay ku hayso qolo kasta markay aragtay qolada kale ciyaalkoodii wax baranaya uniform wato qalin iyo buug wata gelina wax ilaashanaya gelina wax baranaya dadkii kale way masayreen macnaha marka hadda halkaas ay maraysaa shalna halkaas taagneed berina waxaan rajeynayaa insha allah wax kasii fiican oo dadku maaragtay inay noqdaan dadkooda update ah oo maaragtay jiilasha hadda meesha aan ku haynaa markii ta waxbarashada dugsiga hoose dhex ku dhameeyaan deegaanada insha allah ay magaalooyinka soo galaan qorshaha waxaan ugu jira in magaalada maaragtay iskuul weyn laga sameeyo ciyaalkaas ay imaadaan dugsi sare ku dhameeyaan ilaa heer jaamacad aan gaarsiino marka markii jiilkaan maaragtay wax barto oo deegaanadiisa oo ku laabto waxaa imaanaysa jiilalka soo socda inay noqdaan dad wada maaragtay u diyaarsan waxbarashada maxaa yeele waxaa la dhahaa tiga yar wuxuu leeyahay tiga weyn saanqaadkiisa haddii cunugii hore u ahaa cunuga dhoolka ciyaara cunug taabuuga iyo sigaarka iyo tubaakada iska cuna iska qayla qorayga wata hadduu ahaan jiray cunuga ku xigaahu asagana sida ayuu samayn doonaa laakiin waxaan ka caraynaa waxay tahay jiilka soo socda inuusan sidaas noqon harma jiilka kan ku xigaa inuu noqdo mid ku dayda midka maanta jooga kan maanta jooga waxaan rabnaa marka insha allah inaan hagaajino ay noqdaan dad wax bartay ku bedelay waxyaabihii hadda aan ka soo hadlaynay waxbarasho buug iyo qalin iyo kitaab inay akhristaan si kuwa ka dambeeya ay raadkaas wanaagsan ugu daydaan dadkuna ay noqdaan dad macnaha wadadaas qaada insha allah saasaan ku dadaaliyaan kana shaqaynayna waaya cabdulaahi waxaa sheegtay in ku dhowaad ama in ka badan 12 iskuul wax ka badan la hirgeliyo gacanta aad ku haysaan sidee baa u maareysaan dhaqaalihiisa iyo ii sheeg macallimiin badanaa ku baxaya sidaan ogsoonna macallimiinta laftirkooda deegaankii waxaa laga yaabaa inay ku adag tahay tegitaankii ay rabaan aysan deegaankii ayagu ahayn bal waxyaabahaas oo dhan sidee isu waafajisaan waa maasan tahay saaxiibada maasan tahay waxyaabaha aan sameynaa waxaa ka mid ah waxaan sameynaa deegaan kasta markaan la fadhiisanayno waxyaabaha markii iskuulka uu soo dhammaado oo iskuulka la dhiso oo ardayda registrationkeeda ama qoraalkii ay bilowdaan dadka maaragtay deegaanka waan la fadhiisanaa waxaan dhahnaa waxaa qasab arta dee in qolo kasta oo meel degan dad ka mida wax bartay inay magaalooyinka jiraan marka waxaan kala hadalnaa si qofka macalinka ilmahooda wuxuu dhigaya oo noqdo qof deegaanka ah oo inta ka soo jeeda oo hooyadiis iyo aabihiis ama degan yihiin ama adeerkiis degan yahay abtigiis degan ama nolol dhashow degan yahay inay nagala shaqeeyaan inay raadiyaan geeskooda ka raadiyaan qof deegaankan ka soo jeeda oo maaragtay ciyaalkooda wax bara oo aan biri dhibsanaynin oo haddii maaragtay maanta mushaarka ku go'o aan caradaynin oo haddii dee wujuudi bixinayo dadkiisa iyo deegaankiisa inuu hormariyo iyo maaragtay wax kale aan cabsi iyo maaragtay welwel iyo midna aan dareemayn sii jooga macnaha in barnaamijka nagala shaqeeyaan inta badan markaan intaas la qaadano way nala fahmaan way nala ogolaadaan way raadiyaan marka way soo helaan ama way soo waayaan inta badan marka soo helaan markay soo helaan maalinkaas annagana waxaan sameynaa mushaarkiisa ayaan meel saarnaa wasaaradda ayaa la hoos galnayaa jawaabka kala samo iyo aqoonada kala samo iyo contribution kala samo laga xaliyaa qof kaloo dee khayrka jecel uga qaadnayaa halkiya annaga marka waxaan sameynaa inaan macalinkaas mushaarkiisa aan meel saarno walow mushaarkiisu ay wax iska intensive oo maaragtay aan boqolkiiba mushaar aan dhihi karin laakiin maadaama nin deegaan ka soo jeeda oo tuulada ama ka soo jeeda asagana wuxuu ku qasban yahay annagana inaan baabuuraaciisii aan bixino shaahiisi yarkaan aan bixino oo mushaar gaarsiisnay marka inta marka annagana sameyno ayakana dee ilmahooda keensadaan waxbarasho sidaas ay ku bilaabataa